dayaca sanaag sidaas buu ku yimi ilaa haddana waa mid taagan oo sida Somaliland oo aan la rabin ay u doonayso Puntland oo deegaanku rabay arrinta kamay jawaabin dayac bay kaga jawaabtay marka haddii nidaamku meeshii gabo in la helo bulsho soo jeeda muhiim bay tahay bismillahir rahmaanir rahiim marka hore waan salaamayaa dhammaan bahda hadaf iyo dhageystayaashaba runtii waxaan ku amaanayaa bahda hadaf inay wacyi-dhis u taagan tahay howlahan muddo dheer ka soo shaqeynaysay haddii aan mowduuca u gudbo iyagu su-aasha ah maxaa deegaanka sanaag ka dhigay meel lagu muransan yahay waa su-aal in badan dadku dee ay inay jirto ka dheragsan yihiin laakiin dadka qaybo si u eegto marka su-aasha haddaan isku dayo aragtidayda waxaan rabaa dhowr dhinac inaan ka eego oo ilaa 3 dhinac ah aan isleeyahay xal bay u tahay in la ogaado waxa jira dabadeedna aan xalka u gudbo runtii waxa laga yaabaa inay dheeraato laakiin waan isku dayayaa inaan soo koobo qodobka koowaad waxaan isleeyahay wuxuu ka yimi arrintaas waxay ka timi iyo deegaanka inaan nolol ka jirin gaabis iyo ilaawid maamulka Puntland ka timi qodobka labaadna waxaan isleeyahay waa hogaankii dhaqanka oo burburiyay wax allaalay iyo wixii qabiil lagu ahaan lahaa haddii la waayo nidaam dawladeedna kulli qabiilka lagu baxsan lahaa marka taasina waa qodobka saddexaad waxaan isleeyahay waayadan soo noqnoqonay waxa weeye inay dadka bulshada qayb ka mid yihiin buuq iyo waxaan abuuraan oo bulshada kiciyaan oo mowduucyo ama barnaamijyo aan la soconayn waaqica ay bulshada ku jahwareeriyaan iyagoo waxba iska weydiin waxaan rabaa saddexda inaan bal mid u dul istaago Puntland oo kale baan ku bilaabayaa horta si guud nidaamyada Soomaaliya ka dhisan oo dhan ba waxay yihiin aad u liita oo bulshada aan wax adeega siin oo bulshada meel ay joogto way tabaysaa inaanay wax saas u weyni jirin waxa moodaa inay cashuuraha yar ay qaadaan ay u adeegsadaan arrimo siyaasadeed oo danahooda gaarka ah iyo in mushaharro la bixiyo dhinaca dadku way ka siman yihiin wayna tabayaan nidaam xumo iyo inaanu nidaamku sidii ay rabeen aanu waxba uga jawaabin iyada oo taasi jirto ayaa haddana nidaamyadii waxay noqdeen nidaamyo dhex ka talisa oo unitary ah oo sida Puntland oo kale baynu hadda ku jiraa taasoo keentay wixii yaraa ama dhaqdhaqaaqii nidaamka ka jirayba inuu ku koobnaado caasimadaha tusaale ahaan Puntland caasimadda iyo Boosaaso xataa la ilaaway oo ay ka mid tahay ay caasimaddii kaliya uu jirto dadka halka joogaan sidoo kale arrimahan oo kale waxay keeneen tuun inay keenaan way ahayd iyo cabasho laakiin iyadoo cabashooyinkii kulli laga leexanayo wadadii loo mari lahaa isla lama weydiin ba mararka qaarkood hadba dhinac in qofka meesha jooga saas yahay iyo in la reereeyo bay keentay waxa kale oo Puntland iyadoo arrimaha sare oo dhammi ay ka jiraan ba haddana deegaanadu si kala culus yihiin mar haddii deegaanadii qaar la ilaaway waxaa dhacaysaa in deegaanada qaar waxaad arkaysaa inay ka faa'iideystay cid kale tusaale ahaan Sool iyo Sanaag oo kale markay dhex ka talis nidaamkii noqday ku urursan caasimadda iyo meeshii wax ka helayay wuxuu ilaaway deegaanadii kale oo dhan sida daraadeed waxaa dhacday in deegaanadii ay ka faa'iideystaan cid kale tusaale ahaan Sool oo kale waxa ka faa'iideysatay iyo Sanaag Somaliland ba saameyn weyn ku lahayd Sool muddo haysatay Sanaagna saameyn aan laba muuqato bay ku lahayd ilaa hadda ay ku leedahay deegaanada kale Calmadow oo kale shabaab baa qabsatay dayacaasay ka timi doorashooyinkii hore Puntland deegaanka islaas qora iyo deegaanadaas oo dhan kama dhicin sababtu waxay ahayd in meesha ay haysato shabaab calmiskaad oo kale hadeer weyn ognay oo dagaal ka socdo halkaasina meelahaasina way banaanaayeen oo waxa buuxiyay daacish baa buuxsatay markii ay cidba ay iman weydii marka dayaca sanaag sidaas buu ku yimi ilaa haddana waa mid taagan marka laga soo tago Somaliland oo kale inay nidaamyada Soomaalida waxyaabo badan oo dayacaas la wadaagto
haddana waxaa jira waxyaaba ay kaga duwan tahay tusaale ahaan waxaa jirta Somaliland nidaamkeedu wuxuu u qeexan yahay ujeedo u qeexan baa jirta oo ay deegaanada ay sheegato ay ka leedahay oo taasna way fulisaa oo waynu aragnay say ugu dagaalamaysay sool intaanay soo ugu dagaalamay Sanaag baa ciidamadeedu joogeen inay qabsato bay rabtay marka ujeedo qeexan bay halka ka leedahay laakiin bulsho ahaan goboladaasi Somaliland waxay u arkaan nidaam reereed oo ay reernimadooda reer kale hoos geynayaan runtii haday ahaan lahaa nidaam ay ka dareemi lahaayeen oo nidaam macnaha u simanaan lahaa waxa laga yaabaa inay qaadan lahaayeen laakiin sida uu u dhisan yahay ee u qaabaysan yahay ee xataa aynu dadkoo dhan ay la socdaan waa nidaam macnaha reereed marka inay reerkaas hoos tagaan ahaan bay u diidan yihiin haddana dhinaca kale Puntland oo deegaanka ay bulshadu rabtay haddana Puntland arrinta kama jawaabin oo sida Somaliland oo aan la rabin ay u doonayso Puntland oo deegaanku rabay arrinta kama jawaabin dayac bay kaga jawaabtay tusaale ahaan waxa la isweydiin karaa haddaynu hoos u dhaadhacno nidaamka Somaliland oo kale hadduu cid keensado hadda Sanaag oo kale ama Baran oo kale macnaha Puntland waxay leedahay waxay u aragtaa khalad ka yimid bulshada xaggeeda oo waxay leedahay macnaha qofkaas waa qof warsangeli ah oo Somaliland wada marka waa in warsangeli ka jawaaba qaab noocaas bay u fakaraysaa dayac gaar oo kale oo deegaanada koonayaasha oo dhan oo xiga baa jira haddana tusaale ahaan deegaanada oo dhan waxaynu ku sheegnay inuu dayac jiro marka haddana dayacii isku si loogama jawaabo tusaale ahaan Sanaag oo kale ceergaabo hadda dad baa laga soo qaxiyay maamulka Somaliland baa qabsaday Puntland buu ahaa Puntland way sheegatay xilwaana uga soo baxa weligeed ma tagin afkay ka sheegan jirtay haddana markii hadda la soo qaxiyay iyo mar horeba wax jawaaba oo aynu ka hayno iyo waxay ka damacsan tahay ma jirto marka sidoo kale waxa dhici karta in mararka qaar habeenadu mardhood waxaan is weydiinayay markaas hadii Puntland ay ceergaabo arinteeda ka jawaabi weydo waxay ka jawaabtaa gaalkacyo oo kale oo ay Puntland iyo Galmudug wada degan yihiin haddii waraaqo ka yimaadaan dhinaca Galmudug oo hadeerto tusaale ahaan ID oo kale la isku hayay si aad u sawaxana bay uga jawaabtaa marka runtii arintaas oo aan isleeyahay bulshada ay ku kala xiran tahay si bulshada u jawaabtay waxa bulshadu waxay dareemaysaa in maamulku tii reernimada ahayd bay sii xoojinaysaa marka Puntland iyo arrimaheeda nidaamka guud iyo sida deegaanka u dayacday haddaan inta kaga soo gudbo qodobka kale ee meesha isna iman karaa waxa weeye hoggaanka dhaqanka waxaynu ognahay bulshadaas Sanaag oo kale inay aad u suuxsan tahay xilligan adagna bulshooyinku haddii ay nidaam waayaan waxa kaliya ay ku tiirsanaan karaan waxa weeye waa qabiilka iyo bulshadu inay isku tashato marka bulshadii baa si aad iyo aad u suuxsan waxaynu ka dhigsannahay tusaale ahaan Sool oo kale Puntland way dayacday deegaanada la dayacay buu kamid ahaa Somaliland baa intay doonto haysatay haddana waxa soo celiyay oo dagaal weyn oo nafura u galay dadkeedii oo haddana haysta sidoo kale calmiskaad oo kale moralka bulshada dhaqaalaha iyo riixista bulshada bay ku socotaa marka haddii nidaamku meeshii gabo in la helo bulsho soo jeeda muhiim bay tahay haddii aan isweydiino maxaa bulshada tan suuxiyay su'aasha meesha aan u socdo ah runtii waxa weeye waa weydiin mudan in laga jawaabo waxaan isleeyahay bulshada waxa suuxiyay hoggaanka dhaqanka oo dhinacii maamulkana saameyn ku leh inay maamulkana ka danto oo maamulku meesha ima waayo bulsho ahaanna ay u burburto waxa ka mas'uul ah hoggaanka dhaqanka hoggaanka dhaqanku sida aynu ognahay wuxuu burburiyay mabaadi'dii hoggaamineed nidaamkii qabiilka iyo xataa kii siyaasadeed waxa laga wada dheregsan yahay Somaliland inay si qarsoodi ah ahayn inay u tagi jireen mar walba oo dhinac walba ay odayaasha dhaqanku aadaan
oo laba mabda oo kale oo iska soo horjeeda midna uu goonogoosa doonayo midna uu midnimo doonayo bay ka wada dhex shaqaynayaan dhaqankii marka mabda ahaan bay macnaha taasi u dhimatay oo ay mabda inay hoggaanka dhaqanku mabda ahaan u dhinteen waxay sii saamaysay bulshada oo bulshadii wax caadi ah bay uga dhigtay in dhinacii la doono la aadi karo oo aan laga fikirin danta guud iyo dhibaatada iman karta dhinacaasna waxaan isleeyahay waxa weeye dhinaca dansanaanta bulshada iyo suxsanaantan dheer ee aadka u yaabka badan waxa keenay arrintaasaa keentay oo tusaale ahaan macnaha suxsanaanta bulshada meelaha aan ka dareemo waxaa ka mid ah maxamuud galdoon oo kale waa mar dhexdaas muddo dheer buu Soomaaliland ka soo horjeeday mabda'aas marka mabda'i wuxuu yimi markii dagaalada sool ay ka soo dagaaladu ka socdeen bulshana wuxuu ka qabtay baran khudbad wuxuu tusaaleynayay halista Soomaaliland haddii aqoonsi lagu helo dadkan halista ay daaqayaan oo tusaale ahaan ay xaq u yeelanayso inay say doonto ka yeesho sidii Tigreega oo kale marka bulshadaasi suxsanaanteeda waxaad ku garanaysaa way ku jeesjeesayeen hadalkii maxamuud galdoon oo meel fog uga yimi iyagoo aad moodo inay leeyihiin ninkani waa nin iska shaqaysan kara oo Mareykan jooga maxaa khudbadahan iyo waxaan macna darrada aan geliyay macnaha waxay ku tusaysaa heerka bulsho ee loo dhintay iyo sida aadka u daran ay bulshadu u suxsan tahay taasina waxa weeye waa dhinaca bulshada iyo waxyaabaha burburiyay oo hoggaanka dhaqanka ugu horeeyo dhinaca saddexaad waxaan isleeyahay waxaa jirta qolo marba buuq bilowda maamul baanu rabnaa iyo wax noocaasa ka hadasha oo iyagoo aan waaqic ahaan u dirsin waxaan ma socon karaa haddii uu socon karo xataa dee bulshadii in la mideeyay u baahan tahay aan bulshadiina midayn oo wax kaliya aad moodo inuu maskaxda uu ka jiri karo sita ay yimaadaan oo bulshadii kala fogeeyaan oo haddana waxa laga yaabaa hadafiyo iska iman lahaa ay sii lumaan tusaale ahaan in Puntland lala xisaabtamo ama dhaqanka odayaasha la xisaabtamo bay sii carqaladaysaa oo bulshadii bay mar kale isku sii dirtaa marka saddexdaas qodob baan isleeyahay baa gobolka dayiciisa in la isku haysto iyo in xataa nolol ka suurtoobi weydo waa dhow saddexdaa qodob oo ah Puntland iyo dhaqankii oo baabay oo reernimadii baabiiyay iyo in dad iska qeeraysani ay si aan waaqic ahayn uga jawaabaan arrintii marka aan saddexdaa qodob halka kaga gudbo waxaan isleeyahay xalku wuxuu noqon karaa in de kulli bulshadu kacdo bulshadu haddii ayna kicin oo ayna danaheeda ayna iyadu isku duubnaan oo hoggaan helin fiican hoggaanka bulshadaas toosin karta maamulka la xisaabtami karta haddii maamulka loo baahdo haddii maamulka xataa laga kaaftoobo oo maamul kale oo iyagu gaar isu maamulaanna waxa kaliya ee lagu heli karaa in bulshada la kiciyo oo la mideeyo hoggaankeeda marka hoggaankii see ku midaysmaya hoggaankii de waxaan isleeyahay waxa lagu hoggaankaas unbaa hadda wax jira oo sharci oo la og yahay oo reeraha u jira kaasna waxa lagu midayn karaa waxaan isleeyahay dad wax garada jooga aqoonyahan baa jira waxa jira dad ganacsato ah waxa jira dad wadaada ah laakiin runtii dadkani waxay ka dhuntaan mas'uuliyadda way ka dhuntaan eedka carar badan baa ka muuqda iyo inay la kala safan yihiin odayaashan dhaqanka marka runtii iyaga ayaan isleeyahay xalku ku jira inay odayaashaas isu keenaan oo halka laga bilaabo odayaashaas la isu keeno oo odayaashaas iyo bulshada la mideeyo dabadna wadadii la aadi lahaa halka laga sii aado waa dheereeyay waa mahadsantahay nagala qayb qaado aragtiyaha ku saabsan doodan oo fariintaada iyada oo muuqaal ama maqal ah noogu reeb nambarada shaashada kaaga muuqda waa barnaamijkeennii dhambaal taxanahan waxaan ku eegaynaa hayaanka siyaasadeed ee bulshada reer Maakhir dhambaal waa faalooyin maqal iyo muuqaal ah barnaamijkan waxaa soo diyaarisay xarunta hadaf ee cilmi baarista iyo horumarinta